Soomaalidu walaalayaal waa cunsur facaala waxaan akhriyay booga wuxuu sheegayaa 30 sano kadib inaad idinku garatiin waa muhiim 30 sano kadib bariga Afrika waxa xukumi doonta Soomaali balad waa daraasad cilmiye weeyaan 30 sano maanta marka laga joogo kadib geeska Afrika bariga Afrika waxa ka talin doonta Soomaali si uga talin doonta Soomaalidu balad iyo kuma kala saarayaan Soomaali koonfureed iyo Somaliland iyo Soomaali Djibouti iyo Soomaali maartay shanaad iyo Soomaali Kenya kuma yaqaanaan iyo waxay ku yaqaanaan tahay qof Soomaali ah qofka Soomaaligi isaga xukumi doona bariga Afrika boogaas wuxuu leeyahay qofka Soomaaliga wuxuu leeyahay saddex shay buu leeyahay buuri ninka Soomaaliga oo Afrikada kale ayna lahayn kow wuxuu leeyahay buuri wax loo yaqaano dynamic waa qof aan fadhiisan ninkaas wuxuu diraasad ku sameeyay Soomaalidu waxay ka yimaadeen wadanada ugu kulul adduunka waxay maanta joogaan buuri Mareykanka gobolka dhada Minnesota oo dhulka ugu qabow waxaan isweydiiyay buuri si u yimaadeen meesha ugu kulul ilaa iyo meesha ugu qabow su'aasha labaad waxaan isweydiiyay buuri si uga sameeyay nolol horumar leh marka waa dinamikiya waa qof dinamikiya arinta labaad qofka Soomaaligu leeyahay buuri waa muqtaxim qof nolosha ka cabsada ma waa qof jeeda adarkaysa waxa lagu leeyahay warbadaha waa lagu dhimanaya ma fadhiisan radiyadii way soo socdaan sheekada ma dhageystaan waa xaraan iyo wala dhimanaya iyo iska imanayaan badda isku soo dhexmarayaan iyo ku arkay waa wixii Mareykanka ay ku qabsadeen ragii maartay ka yimiday Ireland ka yimaadeen badda waa lagu dhimanay waa la soo mariyoon Atlantic intii soo gaadho ma noolaatay intii kale waa iska socotay marka qofka Soomaaligi hatta nin gabadh safaarada Djibouti ka shaqeynayay Mareykanka la sheegay waxay ka tiri ladaykum ruux Anglo-Saxonia Soomaalida waxa leedihiin روح نف حلدين أنقلو سكسنا يعني إيرلنديين باتين ضد واحد يعبسن صاصيتين مركا قفك الصومالي تاسع شجع أنا تصدحات قفك الصومالي أولي هي مهم كأوحويان قفك الصومالي قماشوا تجو وحجسنا يا أنت أجوب بدن إذا نتيجس هو يدس قبل الحجاب حجسنا يعني كونفورت السودان بيتجين تكاني كفران السودان بكون أولاد مسلمة كونفورت السودان واللي يقول تراوح ميتك إلا أي مدينة صومالية كفرتين مارتي أديجيال يو أي كفرتين مالا سوققة أي حوالي ذي مركب فرتين وحيدا ورمضان باي مدينة صلاة يومت كنا مسكين لقوت كذا مين لقوت كان طبيعي بعيد لبا حافظين النقص وضعنا حمر كضر لبا حافظ على لعبت اللي جبته لكانه مركب هيك كنت كذا بنانا دي مركب السودان تيجي قارات هذا أفريقيا هذا صعته بنانا دي صلاة لقوت كنيو وضدك كدينا محل نقطة ظاهرة dadkii Suudaantii baadhi fataxtum lana ya akhwan nofurta albaaki sidii halkan bal lagu xijaab lagu ma qaadan jirin Soomaalida horteed lama qaadan jirin Soomaaliga waa qofka waa muqtaxim nolosha kama cabsoodo marka arintaasina waa muhiim taasina way garanayaan arin saddexaad ku saleeyeen diraasadoodu waxa weeyaan qofka Soomaaliga wuxuu jecel yahay in uu noloshiisana sameeyo nolosha dadka uu mas'uulka ka yahay inuu sameeyo koonfurta Afrika fadhiyaan nolol buu ka sameysanayaa soo waariday hadiyto dadkii kale ka dambeeyay war hebelow soo dhaqaaq adna soo dhaqaaq noosare noloshiisa marka uu balaarinaya ninka Soomaaliga marka maxay u bixiyeen Soomaalidu qaswi waxay qaadaan dagaal socod iyo qaadaan okay marka dadka saa u fikiraya caynkaasa marka aan doonay in noloshooda maxaa la sameeyay arin buu Ilaahay siiyay hadana dhulkii hoostiisana maxaa yaala barwaaqo aan garanin نيل أنور عشقي وعالم استراتيجي ودولة السعودية وشقة مخابرات وحوري غاز كهوسيا لا وقادينيا ماشي يسوي لشمال القلبيد وقادينيا غاز كهوسيا لا بوري وبط بحايمك الله بطكاس هلكا يالا وكبلامه يا دولك دير قدوشيدا كبلامه oo ku dhamaanay halkii wuxuu ku dhamaanaya xeebaha badda in badweynta India dhinaca kale tan uu soo baxaya ilaa ay wuxuu imanaya Zeylac iyo lagu hayo imanaya wax inta leeg ee meesha fadhiya isha lagu hayo waxa loo dhiganaya inuu badiil ka noqdo batroolka carabta markuu dhamaado markaas dagaalka istiraatiijiga ee lagu hayo waxa muhiim ah in dadka Soomaalidu ay fahmaan waxa jira arin saddexaad oo jecelahay inaan aqoonyahanka Soomaalida halkan iyo culimada aan kala hadlo aqoonyahanka Soomaalida iyo culimada waxa weeyaan waxa u yaala inay dadka Soomaalida madaxooga furaan madaxweynuhu u shaaxiday madaxweynuhu waa in la furo waa in laba shay laga furo waa in qabiilka laga furo labo
وإن لغفر إن نقروينا عدوغينا عدو استراتيجي لنا أنكو عدو سكمني لكن عدو استراتيجي بريق أفريقيا نلفرديان لنا هاي هي عدو استراتيجي ونغفك لكن إن حكم يميل فك إن سكن دريا هي جرا عدو قال إن حقوق ولا صعنه ولا جاب مارمان وأنا مهم يا واحد ذاك تسكره وأقويها كي علماء وإن تصان دجال بين أقول حصاده يعني إن الله قريب معها وحسكن ضد الريا دولدي وينامك معها وإمارات يترك وحسكن دول هيستا marka annakuna aan kala metelino anigu qaraxa maanta dhacay ma oranayo waa qarax shabaab uu ka xoog weyn shabaab waa qarax istiraatiijiya waa qarax dawladda ka dambeeyaan waa qarax aragtiyaal ka dambeeyaan qarax asaas kama dhicino qaraxan wuxuu ku xiran yahay wax badan wuxuu ku xiran yahay ninkii la dhiibay maxaa dhada qalbi dhagax wuxuu ku xiran yahay dhagax qalbi shirki imika ka dhacay gobolada shirki imika la sameeyay wuxuu ku xiran yahay hadalkii dawladda imaaraadka soo baxay wuxuu ku xiran yahay qaacidada askariga furayso maxaa dhada turkidu ay tiri waxaan sameeynaa 10,000 oo ciidanka Soomaaliya oo milo yacdo ilaa kismaayo oo qabiil lahayn oo askariya oo aqoon iimaan leh fikrad leh oo dhulka difaaca waxaas wuxuu keenayaa isweydiino waaweyn adduunka markaasi waxa in la garto oo madaxa loo furweeyo arinta ugu dambaysa qorada aan xagan kala hadlaa wax weeyaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxa muhiim ku ah ikhwaani fillah adduunka maanta waxa midoobaya dadku waxay ku midoobayaan qowm wax dhaqo marka laga diin عقلي هيلانو ميلها مركان فدينو انا هو جيبوتي بان هاي انا هو سوماليلاند بان هاي انا هو بنتلاند بان هاي انا عرتلاند بان هاي wax macna ay leedahay ma jirto kurdi qoom bay noqonayaan waxa weeyaan ummad walba waa qoom ummad bay noqonaysaa marka kor u socon weey hoos baa u soconaysaa haddaan anigu maanta aan sheegto inaan meel yar ka mid ahay waan sii socon marka dambana aniga walaalkay baa laba bax kala noqonayna waa basal ma dhamaanayso لكن هذا كور أصعده وحنا من الصومالنمو قفك الصومالنمو ذا كحناقة والدلي وين قفك أصي وحضوني هذا أنا وحنا كنا ذا ولا له رجل جبوتي عن فرطة وإنكم عن فروي بدعشين الناس الصومالوي ما جعله إيش المشكلة؟ ما في مشكلة هذا كنا إسكاه عن فروي ولا كي بعطاه مسلم بعطاه كنا هو الصومالوي ما أنت أن كتنازلني إن الصومالي نقرنه يندمني أيام تمام دمني واسقولا فكرنا سوح لو معمولي ولا قلدمي محمد سيد برا قلدمي محل قلدمي كنا قلدمي اسماعيل مرقلا قلدمي waxa sheeka sakarno laakiin waxaan laga sheegaysan kari wax weeyaan ma Soomaali nimada yaa galina sheeko maya haddaan taa galino islaamada gabri galina sheeko labada shay inaan wada difaacnaa wax weeyaan hadhow hataa haddaan isku imano oo mid ma noqono aan orno maanta carab baa doonaysa in hal dawlad noqoto waa la burburiyay laakiin hal dawlad noqdo waxa jira wax qowmiya carabiya waa la doondoonay rag baa ka hadla waxaa jira qowmiya kurdiya qowmiya turkiya qowmiya antakiya dadku faransiisku waa qowm waa la doonaya adiga maxaa ka baabiinaya marka dhalinyaradu inay dhaafaan maartay baa mushtarku waxay sameysteen tukaan quraato dahabshiil baa ka dhisan Soomaaliya oo dhan dahabshiil Soomaaliland buu dahabshiil ma ha dahabshiil Soomaaliland meel kasta ka jira oo maartay odaygii la jiray muxuu ahaa in bank salaam la jubid ka soo muxuu odaygii maartay ya hormuud ma ka jirta fi kulli makaan واحد هذا حدود ويدافع واحد هذا عابرة الحدود حدودي وإيش كدافتي تجارتي ويدافع علماء وين حدود الأفان علماء إن حدود يشان معها جغرافيا مركز ساد راد أساس ما نجعل لها إن شاء الله تعالى